بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوديال كلنا وعنا ونكسل ميل والبو نقدا ونيسان هالكني ومقال باهية سيئنا برامج كيدي سوغارينا برامج كحبوغال هو نوغو براتين هذا هاني هو كالإين آن هودا إذين سو مرينا هبين دا إسنين تا 3-4 خميس تا إيو جمعة على برامج كحديث وصارت لما كان يدل سوسياني واحد جليل عثمان سمو وحان الديرة كسارنا مرها لحليل الصومالي دا إيو جيسكا أفريكا هدو يبقى قدر برامج كعاوة وحا مرتين وقع فرح معلن oo soo noqday gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka dalkan Kenya isla markaana ah siyaasi Soomaaliyeed oo ka faalooda muraha la xiriira Soomaalida iyo guud ahaan geeskan Afrika waxaan wax ka weydiin doonaa arrimo ka jira dalkan Kenya Soomaaliya iyo Ethiopia intuba in farax ku soo dhawo barnaamijka xuquuqaad ee muqaalbahiyaha CNN waan ku faraxsanahay kulan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليك السلام waxaan jecelnahay inaan wax ka weydiino arrimo badan oo la xiriira Soomaalida iyo guud ahaan geeskan Afrika oo wadan u dul istaagi doona Soomaaliya, Kenya iyo Ethiopia. Haddii aan ku hormarno dalkan Kenya isbuucyadii tagay waxa aad loo hadalhayay oo uu madaxweynaha hadalla jeedin ka dhageystay guddi lagu magacaabay PPI oo dib u heshiisiinta ama mideynta Kenyaanka loogu magacaabay. Bal haddii aad faahfaahin ka siiso shacabka Soomaaliyeed ee daawanaya telefishinka ee barnaamijkan isha ku hay guddigaasi waxa uu ugu dhignaa Kenyaanka dalkan. guddiga waxay ka shaqeynayaan wax la yiraahdo Building Bridges Initiative. waxa weeyaan wadankan mar allaala markii doorasho la galo wadanka wuu kala jabaa oo colaad xun baa dhacdaa oo waa la kala fogaadaa. dadka sidii la isku soo celin lahaa initiative ayaa guddiga uu ka shaqeynayay. wuxuuna salka ku hayay handshake wax la yiraahdo mise gacan maartay in la heshiis oo madaxweynaha iyo ninkii mucaaradka ahaa oo xisbigii mucaaradka ahaa oo doorashada hadaan soo dhaafnay Lawrence Spain inuu ku guuleystay laakiin laga shubtay oo Raila Odinga la dhahay. guddigan hawsha uu hayay wax cusub maaha. annaga wadankan anagan Kenya halka wadanka kaliya oo 5 sano doorasho ay dhaceysay mustacmarka soo uga tagay ilaa yoominahada dhacdo oo saas maartay wadamo yar oo Southern Africa sida Namibia iyo Botswana iyo South Africa iyagana way fursada way heleen. لكن أنا كان democracy بمعنى الكلمة أو بالضبط إماها وأن لك لشمانة يو مارتي ما قاعد ديمقراطية كي هي لكن عن كل مست exactly yes. مركز تو دبعت أي دعوة ولا سكور ماذا 2007 دبعت دعوة 2013 دبعت دعوة 2017 دبعت دعوة 2002 كلمة هاد كوافرة كتريسكا ودبوا إنه صندعين وشري دب لكن دب هذا شيء بلارن ومدحوين إيش تذكر كويس يستيم كمان عم ذايده. marka waa hadana waxa la gudi hala saaro wala dib hala isku soo noqdo wadanka uu burburahay waa la soo imaada wadanka waa la badbaadiyaa. laakiin bida Soomaalida ay tiraahdo ninka doqonka intuu dhumay la soo helay wuxuu yiri maxaa laga soo helay hadana bari baan dhumay. marka waxa jiray Kriegler Commission la dhaho nin judge oo South African oo aad caan u ahaa oo ka shaqada qabtay reportkii Kriegler Commission baa jira. waxaa jira Waki Commission kulli yaraha asagana oo report uu hagaajiyo in justice oo judge sana Kenyan ah. waxaa jirta report yiraahdo TJRC waxa la Truth Justice and Reconciliation Commission waatooyinka dhacay oo dhan in dib loo cayn ka loo daba kaca. waxaa jiray mid asagana Landungo Commission oo boobkii ka dhacay wadanka siiba xagga beeraha iyo dhulka iyo wax kasta oo dhan oo dhibaatooyinka si toos iyo si dadbanba u saameynayo. marka waxaan haynaa annaga ilaa 8 kalena waa jiraan oo mar alla markay dhibaato dhacdo mise doorashintin la kala shubto see loo xalliyaa si fuusan dhib kuma dhicin baa la dhahaa. halkii u yimaada laakiin haddana meeshii baa laga wataa. marka kan wax hadda dhib weyn wax isbedel weyn uu keeni doono aniga farax markaan igama muuqato. waxa iga muuqdaa inuu kuwii hore ka mid u noqon doono. Okay, haddii aan usoo dul istaagno su'aasha
maxaa keena maxaa sababa in marka waxaa keenay kala qaybsanaan muddo wade waxa weeyaan afrikaankii cadaalad darrada mase waxaa la dhahaa electoral impunity boobka la kala shumanayo wuxuu iska noqday a way of life nooc min nolosha iska noqotay dimuqraasiyaha la oranaya sifa international community-ga iyo world bank iyo IMF-ka waxaasoo dhan dhaqaalana looga helo kaalmana looga helo ogolaashana looga helo oo in la riligeliyo laakiin wixii dhab ahaan uma noqoto waa la iska boobaa wadankan wuxuu aada ugu caanbaxay uu soo caanbaxay waxyaabaha caynkaasoo kale inay markasta ay ka dhici jirtay tallaabaqaadkii ugu horreeyeyna ayaa kaa kibay mar allaana markii xukunka ugu horreeyey oo reer galbeed ka tageen oo ingiriisku ka tegey dad afrikaan oo bedelay yaa meeshii mustacmarka u joogay mustacmarkii ahaa nin cadaan ahaa unbuu nin madow bedelay hantidii wadankii baa la boobay oo maaragtay dhulkii baa la boobay beerihii baa la boobay wax kastoo dhan waxay gaalada ka tageen cadaan ka tageen xukunkii baa la faramaroojistay xoog lagu haystay mar kastaba adigu wixii baa way un sii gamaartay maalin ka dambeyso way un sii xaqa la dudsiinhayo oo dhankaa uu sii gamaarhaya uu sii jilfaysanaya maska markuu aada u weynaado oo 100 sano u gaaro suntiisana bay kasii daran tahay very lethal wuuna jilfu yeelanaya anaa kaanaga sidiiba horta ay ku socotaa haatan midkan wax dan weyn mujtamaca guud oo kenyaanka ha loo sameeyo fi lmustaqbal mar kastana yuusan dhib dhicin ma aragna in meesha horta ay tahay what informed wixii ku qasbay inay sameeyaan BBI-da BBI-da waxaa loo sameeyay aan yar ku sheegay waa dad siyaasiyiin oo doonayaan inayan siyaasadda ayan horta dhaqankii hore waxay ahayd dastuur baan hadda haysanaa dastuurka waxuu hirgelay 2010 dastuurkana qodobadiisa waxaa ka mid ah in madaxweynaha loo ogol yahay 2 tooka 2 door oo min 5 sano inuu soo geli karo haatan wixii baa la bedeli rabaa hadana waxaa laga dhigi rabaa parliamentary system tii hore waxay ahayd executive presidential system tanna waxa weeyaan parliamentary system prime minister inuu noqdo ninka head of government-ka marka reportka aan kasoo dhamaano dhankaas BBI-da uu horkacay Yusuf Xaaji reportkii laga dhageystay ay countiyada dalka ay soo wada tageen waxay sheegeen in dhammaan 47 county dalkan ay wada tageen guddigaasi oo ay akhbaarad soo ururiyeen akhbaaradkii ay soo ururiyeen ay la wadaageen bulshada oo ay madaxweyne horkayneen haddii bal aad mid u dul istaagta ama akhbaaradka horta wax concrete oo bizabt oo sahal la yeela leh ma jirta meesha waa un wish list waa shopping list weeyaan oo baarlamaanka in maaragtay parliamentary system laga dhigo waxyaabo fara badan in wasiiraha laga soo saaro baarlamaanka baarlamaanka dibadda laga soo saaro maamulka gudaha waxa hadda ku qoran reportka waa nothing waa zero marka substantial aad fiiriso waxa suuq weeyaan waxa maanta dad intii laga soo qaaday meesha la keenay wuxuu kaliya uu ku fiican yahay it is the beginning of a conversation wuxuu noo fursad u hagaajinaya oo albaabka u furaya in wada hadal la bilaabo maxaa ka qaldan wadankan maxaa laga bedeli karaa see loo bedeli karaa maxaa dastuurka laga bedeli karaa maxaa u baahan in shacabka dib loogu noqdo in baarlamaanka uu sameeyo waxyaabahaas ay tuwayaan laakiin arrinta halbowlaha oo ku qasabtay in waxaan la hagaajiyo iyo danta laga lahaa waa hal mid keli madaxweynaha waqtigiisa 10 sano uu dhamaanaya 5 sano uu dhamaanaya uhuru 5 sano u dambeysay baad ku jira 222 waa inay doorasho dhacda oo nin cusub u soo gala marka dad isku ceersanayo dad moogtay doorashada 5 sano heshiis baa leeyahay dadka xisbi iyo xilfi baa leeyahay isbahaysi baa leeyahay 5 sano u horeysa waa la haystaa oo waa la midaysan yahay maxaa 5 dambe ay u baahan yihiin laakiin 5 dambe markii la doorto maadaama uu madaxweynaha uu markay 5 dhamaato uu markale soo sharaxi karin sida Mareykanka ay tahay oo kale waa 4 sano iyaga isbedel baa bilaabanaya dadkii isla socday oo heshiiska yaa inay isqiyaanaan isla qadabayaan bilaabanaya waxa weeyaan anaga mar dambe shacab iyo aqlabiyad aan u baahanahay inaan doorasho ku soo galno ma jirto ilaa ninka ma soo noqonayo
dastuurkii miyaan bedelnaa oo waxaan ka dhignaa prime minister oo markuu doono soo noqon karo madaxweynaha naata uu istaagi karo ma kii hore kii aan midna madaxweynaha midna ku-xigeen buu ahaa kii madaxweyne ku-xigeenka ahaa wuxuu intaa madaxweynaha garab u siinayaa markuu ka tagay meesha isagana in meesha loo ogolaado inuu noqdo dadkii madaxweynaha ka agdhawaa war kan isku hadleen karnaa mase wax kanaan raadsanaa haddana waad fahamtay soo ma waxyaabahaas unbaa hadda ay waa siyaasadun arrintan la xiriirta marka ma ahe madaxweynaha ma fursad intii la bedelay waxaan oo laga dhigay prime minister system ma loo ogolaan karaa inuu soo noqdo haddana mar kale oo u istaaga xisbigiisa asagoo wato madaxweynaha haddana wadanka u noqdo head of government ninka wadanka xukumayay uu noqdo madaxweynaha iska yahay ceremonial waxa weeyaan magacyeel uu iska yahay oo iska bohon ad garanaysa soo marka aan ugu imaano marka suurtagalnimada iyo waxa ay ka dhigan tahay taxadarkan Kenya oo dal dimuqraadi ah oo doorashooyin badan ka soo dhaceen inkastoo khilaaf xiriiriyay doorashooyinkii dhacay maanta ay u gudubta amaba afti loo qaado suurtagal ma tahay in wadankan uu ra'iisul wasaare yeeshto iyo madaxweyne ceremonial amaba way tahay suurtagal weeyaan dhab ahaan aniga haddaad weydiiso mar kasta waxaan ahaa nin ka soo horjeedo madaxweyne awood badan leh laakiin lala xisaabtami karin kaanaga hadda waa sax waa imperial president awoodoo dhan buu leeyahay nin baarlamaanka intuu soo dhex istaaga su-aalo laga weydiin karo oo maxaad saan u samaysay maaha waad fahamtay sooma memberinta dowladda kuwa ku jira wasiiraha waa dibaduu ka keensaday xagguu la fariisanaya baarlamaankii waxaa ka jawaabaya gudoomiyaalka gudiyaalka kala duwan oo dhanka dowladda ka socda ayaa su-aalaha memberinta ka jawaabaya waa ilaa intuu ka jawaabi karaa madax maxaa awood ma laha marka power with responsibility awoodda ninka hayo oo fulinhayo iyo qofka dumarku hayso fulinhayso yaa lagala xisaabtami karaa laakiin hadda waxaan qabnaa waxaad kala xisaabtamaysaa nin aanba shaqo ku lahayn oo guddi baarlamaan weyn oo isagana awood aana shaqo ku lahayn oo sharciga hagaajiyo oo member of parliament marka intaa la bedelo oo intii la hagaajiyo prime minister la hagaajiyo xisbiga ugu dad badan memberin ugu badan uu noqdo ninka gudoomiyaha xisbigaas uu noqdo ra'iisul wasaare madaxweyne maartay iska symbolic oo dhufaanan oo dusha iska jooga asaga maartay ceremonieska iyo safiirnaha qaabilayana uu iska jiro sida hadda boqorada ingiriiska ka tahay mase sida ay wadamo kaloo badan iyagana ay ka yihiin sida hadda Singapore oo kale iyo maxay ahayd Tanzania maaha Tanzania executive president prime minister appointed when Ethiopia oo kale exactly Ethiopia oo kale iyo wadamo kaloo fara badan galbeedka hata wadamo badan baa jiraan saas oo kale meesha boqortooyo jirtana boqorada ayaa ceremonial iska oo head of state oo ceremonial meesha boqortooyo jirana madaxweyne ceremonial iska qaban yahuuda Israel nidaam caynkaas oo kale oo maaragtay ceremonial president laakiin executive prime minister baarlamaanka dhex imaanayo su-aalaha maaragtay laga weydiin karo kana jawaabi karo inay yeelato waa arrin loo baahan yahay in wadankan uu ku howlgalo أنا waxaan aaminsanahay taa inaanan fundamental changes to the power structure yani waxyaabaha halbowle oo awoodda wadanka sidii loogu takarfalanayo loogu howlgalayo lama samayn karo iyadoona shacabka dib loogu noqonin dad baa waxay leeyihiin baarlamaanka uu marin karaa isbedelkaasi to distribution marin karaa laakiin ma aaminsani you have to go back to the people shacabkan waxaan aaminsanahay taa keli un hadday tahay wax la weydiinayo inay in badan ay yeeli doonaan laakiin waxaa jirta laba shayna waa jirta cabsi laga qabo haddii dadka barkood ay madaxweyne ay noqdaan meesha hadda uhuru uu joogo in ay aada ugu takarfalan karaan awooddaasiito sida uhuru aabihii oo Kenyatta Jomo Kenyatta iyo Moi si xun maartay ay awooddaasiito ugu takarfaleen waxa la wixii maarado ka soo horjeedo dhanba ay maartay ay si fiican ay talaabooyin adag ka qaadeen marka siyaasadda badana adduunka cabsida inta loo samaynayo cabsi
iyo inta loo sameynayo hawe iyo raja inta cabsi loo sameynayo ayaa badan. Haddii system caynkan uu jiro oo hebel iyo hebel oo naxariistii ka guurtay ay meesha imaadaan ama ay nagu baabi'iyaan, marka cabsida inta loo sameynayo qof la doortay noqotaya iyo nidaam la bedelay noqotaya, cabsida is more fundamental than the aspirations. يعني hawada iyo rajada ummadda ay leedahay cabsidaas markasta in laga gaashaanta shar u tooghay khayr wuxuu kaama dhibe oo kale weeyaan. marka cabsi laga qabana maalan Uhuru hadduu ka taga meesha ku-xigeenkiisa laga qabana meesha bay ku jirtaa. waad fahamtay sooma? arrimo badan baa iska jiraan, laakiin dastuur nidaam ahaan anigu prime ministerka waan soo dhaweynaya, wayna fiicanta, wayna qasab in shacabka lagu laabtaa. Okay, agaag tani markii ay heshiiyeen Uhuru iyo Raila Odinga, dad badan ayaa waxa ay aaminsan yihiin in Raila Odinga uu curyaamiyey geedi socodkii dowladdan iyo horumarkii xukuumaddii tan ka horeysay ama maamulkii 5 sano ugu horeysay, horumarkii dalka uu gaaray uusan iminka gaarin 3 sano 2 sano oo ay harsan tahay. taasina uu sabab u yahay in Raila uusan ka hadlin arrimaha dhaliisha ah ee dowladda, mucaarad la'aan dowladda waxay rabto iyadoo sameeyso waxay rabtana isaga dhaafto. marka ma isdhihi karnaa heshiiskaas inkastoo uu faa'iido ugu jiro shacabka in la heshiiyo Uhuru iyo Raila si xal loo gaaro waddanka uu xasiloon u gaaro, hasan Raila waqti xadarka inuu curiyaamin haya arrimaha iyo adeeg qasab weeyaan. wixii markii hore waxa weeyaan waxay ahayd hadda waxay noqotay amsa wada cunno ama wada cunno amaan caraynay markii hore ahayd. hadda wada cunkii baa lagu heshiiyey. mar haddii wada cun lagu heshiiyey oo iyaga wada cunahayaan, caraynta waxa u fiican shacabka markuu jiro mucaarad xoog leh oo wixii khaladka dawladda ay samaysay, fasaad dawladda ay samaysay, boobkii dhaca dawladda ay samaysay markiiba soo saari oo dawladdii qilqil gelinaya, shacabkii u fiican tahay. waxaa dhaqaalihii shacabku dib ugu noqonaya. hadda laakiin waa la heshiiyey, mucaarad waddanka kama jiro, ma jiro mucaarad. maadaama la heshiiyey mucaarad uusan jirin, fasaadkii waa boobka. maalin haddaadan akhrinin jiraadka ka akhrinin intaasoo bilyan oo shilan Kenya oo la dhacay, maalin labaad ay akhrinaysaa. waxaana kugu daliilay hataa haddaadan akhrinin waddanka waa broke waddanka waxa weeyaan uu qaariqay. waad fahamtay sooma? ma jirto lacag ma jirto. wixii waa la boobay, mashaariic lagu boobaa la geystay oo SGR waxyaankaas oo kale, deymo fara badanna waa laga soo qaatay meel kasta. maanta deenta Kenya waxay kor u dhaaftay 7 trillion oo shilinka Kenya waa $70 billion. yaa anaga hadda aan deymaysanahay la ismana gaarin ilaa 90 maan wadayna. waxa weeyaan boob yaa meesha jira oo mucaaradkan ka aamusay. waxa hadda loo qaadanaya deymaha dambe wax loo qaaday wax kale ma waxa weeyaan wax soo saarkii waddanka ma gudi karo deymaha oo wixii loogu talagalay in bil kasta mise sanad kasta mise 3 biloodba la bixiyo ma hayno. revenue-gii wuu yaraaday, dhaqaalihii waddanka hoos buu dhacay, wax soo saarkii baa yaraaday, deyntina waa la rabaa. markii mishaarka la bixiyo oo maxay shaqaalaha ciidanka booliista wax kasta la bixiyo, waxa soo harayo wixii canshuur ahaan shacabka looga aruuriyay kuma filna deymaha inay service garayso. waxa weeyaan ribada deymaha ay bixiso, korsaarka deymaha inay bixiso kuma filno. marka waa inaan deen karaan soo qaadano. marka deen qaado deen kugud mar bay deynta isku wada imaanay. hebel baad ka qaadatay beri ka maalin hebel uu ku diidi doonaa. marka jug bay dhihi jugti wax nooga haray wuu yaryaad. isla su-aalo xiriirsan bal haddii aad wax nooga sheegto ama aad shacabka u badhaamiso wada shaqaynta ka dhexeeya madaxweyne ku-xigeenka dalkan iyo madaxweynaha halkee ay gaarsiisataa? horta inta waxa weeyaan sida Soomaalida oo kale ma aha. farfiiq iyo maartay aankaas oo kale iscaayin iyo dagaal ima jirin. iyaga oo aan wax wanaag jirin dhexdooda yaa haddana markii banaanka la imaado wada shaqayn ay muujinayaan. waddankii bay fiirinayaan, patriotismkii baa ku badan. marka waddaninimadii baa buuxdaa. marka ma inta badana ma tusaan, ma muujiyaan wada shaqayn la'aantooda banaanka ma muujiyaan. laakiin cabsi badan baa jirta, cabsi aad u fara badan baa jirta in madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa ay kala tashadeen oo madaxweynaha uu
ku talagalay oo mise ku go'aansaday inuu ka takhaluso wadi fahmtay soo wixii maadaama ay tahay munaafasa siyaasi ay tahay tartan siyaasad ay tahay mid kastana wuu is ilaalinaya hadallada ka soo baxaysa wax kastoo dhanbo inuusan lafagaarkan kale ku samayn hadduu shacabkii meeshay u badan yihiin ay nacaan ku-xigeenkan oo laylaha ay noqoto shacabkii inay la safanayaan nin kastoo ka imaada mise badiil kastoo la keeno xumaatida iyaga u dhexaysay way madaxweynaha waxaa la suurayo in marta uu helo haddii ay noqon weydo oo ninka intuu galaangasho hadda u sameynhayo meel kasta uu tago wadanka ku wareega meel kasta oo wareegii wadanka ku wareegaya shacabka ay dhahaan adaan ku rabnaa ay dhahaan oo u arka kaadacsidaada lama sad badanayo yacni colaadaadana waad muujisay madaxweyne haddaad tahay ninkana shacabka laba gurey way soo dooran doonaa badanaa wuxuu iska jeclaanaya madaxweynaha saytu inuu haddana uu wanaag u ka samaysto sooma marka wax siyaasadda waxaa waaye inta taaba fiiri miinaan kula qarxaysa maya haday kula qarxayn si fiican ugu taagso inta taaba haddana hadday kula qarxayn ku socod taagso tallaabo saa u soo qaad adiga oo meel kasta ka fiirinayso yaa laba dhinac bay ceerayaan hadda marka haddii mucaaradkii ra-iisul wasaarihii hore Raila Odinga iyo madaxweynihii ay heshiyeen madaxweynihii ay kala boodeen ku-xigeenkiisii marka bal saddexdaas nin wadankan marka halkay geen karaan kulta halka ku socda wadanka والله حد واحد ودن كيف فكرة يمشي ودن كان كل شيء ودن كشغال أنت ويفرض بدن تاي دقالي هوس بودعي كابيتال فلايت بعد هذا رقم رقال بدن بالغ صاري دي بدها لو صاري وحي بين بقى جرتا أو رقالها أنا جو كرهية يا ملك استلوق كرهية وبين مر بيسكسو بنتي مصعنيس بعد فترة مدير كذب بنتي هذا مصعنيس marka anaga waan maanta xalka ugu liidataan joognaa wadan meeshan anaga marayna dhaqaale ahaan iyo nolol ahaan aan marayno wadan mar haygees ka ma jiro waxaana South Sudan ka okay waxa dhawaan waxa la xiray gudoomiyaha ama gabanaha Nairobi Mike Sonko eedeynay in lacag la luusha ama musuqmaasuqa oo bal la dagaalanka musuqmaasuqa ee xukuumadda haatan jirta heerkii ay gaarsiinayaan markasta anaga anti corruption commission حاطين ايش نصور تبي يجري جرتي حصواص لا دير بس ما ولا يعجز افرتني كو سنه ورتت مدحوينها موي markii uu ana arday jaamacadii aan dhigay maxay ahayd arday iyo waxyaabo ku soo caan baxay kamid ah ma la dirna masbaaso ha kuna magendo ki koori oo Kenyatta oo madaxweyne ugu horeeyay wadanka xorriyadda markay qaatay على رد الفساد كورين شري مركا adigu waxa waaye inta badan waxa loo fasiraa markasta waa qowda maqalsi waxbana ka qaban laakiin wad waxa shay fudud oo shacabka lagu kasban karo oo masqaad baan diraya laakiin dawladda la baqaatay macallin gabana la xiray wal gabanaga maxaa loo xiray ma masqaad baa loo xiray mise waxa loo xiray siyaasad kuwa lamid oo fara badan oo gabanayaal baa jira asaga wuxuu xaday wax ka badan xaday iyaga maxaa ku loo soo qaban lahay way fahamtay soo okay asaga waxa weeyaan waa nin runtii soo ku noqday gabana ee hadda faj'an u tahay oo la yaaban yahay oo soo jaamacada ku galay oo degree ku qaatay la yaaban yahay maxaa wuxuu ahaa nin jeelka ku jiray qaal shiraha oo shimalato lagu soo xiray oo manyani lagu xiray oo meel badan lagu xiray oo committee lagu xiray oo meel kasta waxyaabaha muqaadaraadkii waxa lagu xaman jiray bari hore sidoo ma ku noqday gabanaga Nairobi aniga waan yaabanay ilaa hadda ilaa min hada runtii markii loo kaco maadaama uu ahaa nin markiisii horeba faraadii kula jiray markii siyaasad ahaan ay iska hor imaadeen qolihii awoodda haystay way u fududaatay markaa inay jeel buu ka carray hadda ka hor ninkan hadda governorka waa nin waa fugitive waxaa la dhahaa nin ka cararay sharciga ka carray marka nin fugitive soo hata governor u noqday waa su'aal aad weyn badan hada fariis way ka yeelan meel kasta anaga waa in certificate of good conduct aad haysataa markii aad maal u istaagi rabto certificate of good conduct soo ku helayna hata waa la yaab laakiin qasab marka dawladda dadka madaxda heshiis bay ahayn iyagu ma la qabteen oo dheer ninka saalisi daay hana u istaag kursiga hadda laakiin waxaad moodaa inay iska horimaad u dhacay
iskahorimaad kareeto markuu dhacay dowladda way soo saartay waxay tirahdeen musuqmaasuqaan la dagaalamayna ninkaad doonta noqo jagada doonta haysa adduunka saaxiib kasta la noqo madaxweyne haddaan ahay ilaa asaga madaxweynaha aad bay saaxiib u ahayn laakiin anigu tilaabadeeda waan qaadi ma asaga ku ekaan doonta mise kuwa kaloo fara badan oo hadda weli asaga saaxiib leh yaa iyagana baaritaan lagu samayn doonaa oo dadka lasoo qaban doonaa waa su-aal meesha ku jirto laakiin anigu waxaan u aaminsanahay inkastoo asaga aanan wax naxariis u haynin oo nin marka hore ku habboona anaga meesha inuu tago noqdo governor kuma habbooneen haddana in lasoo qabto la daba kaca oo dembiyaalka uu galay la ogaado waa arrin meesha ku jirta weyn waa tilaabo haba yaraatee tilaabo fiican weyn waxaan aadaynaa dhankaas iyo gobolka waqooyi bari oo aanu ognahay xaaladeeda halkii ay marayso doorashooyin badanaa dhacay waxyaaba badanaa isbedelay hoggaan badan oo aad adigu qeyb ka ahayd ayaa ka jira gobolka waqooyi bari dad badan ayaa waxaa aaminsan yihiin in mas-uuliyiinta laga soo doorto gobolka waqooyi bari aanay waajibaadkooda garanaynin haddii ay garanayaan ay sidii la raba ay u gudanaynin tusaale haddii aan kusoo qaatay modika ayuu ku egyahay bridgeka amaba waddo wanaagsan oo dalkan ka tagtay oo gobolkaas u dhaafto haddii aad dhanka dhadhaab aad madowgaasha haddii aad dhanka kale dhadhaab aan aadnana wuxuu ku egyahay modikooyin ka egyahay dad badan roob xilliyada ay daan mushkilado badan ayaa nagala kulmay gawaari ayaa ku guddoonto bal mas-uuliyiinta gobolka waqooyi bari waa maxay howlaha ay u hayaan shacabka gobolka waqooyi bari horta laba mid waanu kala saaraynaa waa saad u sheegtay horta waxa weeyaan mas-uuliyiinta meeshay u badan yihiin waqooyi bari hadda hawsha ka wado meeshay u badan yihiin lama soo dooran shacabka ma soo dooran meeshay u badan yihiin shubasho ayay ku yimaadeen gebigooda saddexda gabana way shubteen maxay ahayd in badan baa shubad sif badan hebel anoon ku oran horta gaars doorasho kama dhicin waad i gartay sooma waa la wada shubtay wajeerna siisa lamid mandheerana siisa lamid dad la soo doortayna way jiraan oo iyaga dadaal shakhsi ahaan hayaan oo maarata dadka kulli isku mid maaha maalan haatan waqooyi bari cidda keli oon ku oran karo member of parliament weeyaan oo uu dagaalba ku jiraa dadkiisana uu dagaalamaya aad baan u shaqaynaya waa dad yaroo kooban oo ka mid yahay mudanaha aadankeenan oo kale laakiin dad la soo doortay oo si dhab loo soo doortay oo maxay ahayd iyagana meeshii may ku cusuban yihiin sida ilaahay iyaga u dhigay weeyaan aan howl adag hayninna way badan yihiin waqooyi bari falaxdii dadaalkii dhaqan u ahayd dadka lasoo doortay inay dad kacsan yihiin oo maanta o dhan mashaariicda raadinayaan oo isu imaanayaan oo dowladda ay qoobka u saarayaan hadda ma jirto safardan hadda ma jirto asbaab badan baana samayso haddaana soo koobi karin waxaa ka mid ah dhaqaalaha qeyb ka mid ah waxaa dadkii baa lagu celiyey marka tiibaa sidii loo kala boobi lahaa lasku ceersanaya centerka wax si fiican oo la xisaabtamayo oo Nairobi dowladii dhexe wax si fiican oo la xisaabtamayo ma jiro wadadaas hadda ilaa madowgaasha gaartay 3 jeer baan aan sababteeda u tagay bangiga Arab Bank for the Development of Africa African Development oo Khartoum kule maxay dar koontarkooda yaan u tagay qadab tagay madaxweynahan oo wasiirka maaliyadda yaan aniga asaga daba soconay oo ilaa aan samaynay heshiisyadii ugu muhiimsanaa aan ku sameynay treasury markii uu saxiixay waan la taagnaa la fadhiyay aniga oo waan dadka aad uga shaqeynay baan kamid ahaa doorkii ma maqan yahay anoon tafaasiil badan sii gelin haa way ka maqan tahay waxaa la gudboon shacabka Soomaalida ah oo waqooyi bari in badan horta dadka ay soo doorteen meesha ma joogaan oo dad aan la soo dooranin baa loo shubay oo halkii fadhiyaan wax weyn lagama sugayo taasoo kale xisbiga marka xaakimka ayaa u shubay ayaa maaragtay u boobay xisbigaas ay tahay madaxdiisa bay lawyer u yihiin oo daba socdaan oo ay amaanayaan oo Uhuru iyo Ruto iyo wax la mid ka bay amaantoodana wadaan oo aad u daba socdaan
in badan dowladda iyada oo centerka markii hadda lacag baa jirtay markii wadadaasayto lasoo dhameeyey Kenyan component baa jirtay waa in 15% aan u malaynayo inta kale diin carabta laga soo qaatay oo maartay ku jirta Kuwait faan ma gartaa halkii malaadka dhowr wadan baa ku jirtay halihii yaraa oo Kenya ay bixin lahayd yaa sanado badan horteed barnaamijkan aan ku jiray wixii ka horreeyay yaa quri kari weysay santa balka treasury oo niman qabiil ku xisaabtamay oo marka joogay maaliyadda joogay ay ka maarmayeen goboladooda geysteen 85% dibadda ka imaan lahayd 15 dowladda Kenya ay contribution keeda ahayd yaa la qori waay laakiin markii dambe oo aniga ku jiray meeshii oo barnamijkii tobnaad oo 2008 ilaa 2013 ah waa qobkan oo ku saarnay waxaan ka soo fujisanay wayna socotaa hadda waxaa haray guud ahaan wada shaqeyn fiicanna ma jirto centerkana aad loolama xisaabtamahayo halihii yaraa oo gobolada la geeyna boobkii baan caadi ahayn oo laga boobayay marka inkastoo runtii goboleyntii aan aniga aad u support garay haddana aan aaminsanahay waxyaabaha yar oo laga gaaray aan marnaba la gaareen haddii goboleyn aanay jirin haddana fari kama qodno in gobolada qaar dalkan lagu aado train SGR lagu aado qaarna laami lagu aado idinkuna sidaas u burbura sanataan marka maxay ka dhigan tahay arrintaas treenka horta dadka iyo gobolka waxa loo soo qoondeeyay ma aha waa train waxa weeyaan waa culays badan oo la rabo in meel inta laga qaado meel kale la geeyo anaga hadda wax culus oo aad u fara badan oo dhulka anaga ka soo baxa oo intii lagaga soo qaaday train meel kale loo soo geynayo ma jirto treenka waxa weeyaan baddu ka soo qaadatay konteenarada Uganda, Rwanda, Burundi iyo wadamahaas oo dhan ba Eastern Congo, South Sudan buu soo qaadaa oo gaarsiiya wadamaha meelaha xuduudada wadana diyaarada gawaari kale ka sii qaadaan marka horta waa inuu jiraa production mise agricultural production mise imports iyo exports oo meesha marayso yaa lagu sameeyaa hadda train dhigi North Eastern wax ilaahay intii oo faa'iido u keenaya ma laha waad gartay Soomaa laakiin waqti baa jira loo baahanayo in wadanka dhanba la gaarsiiyo marka wadanka dhaqaalihiisu aad u weynaado oo aad u kabco ya marka social responsibility not an economic remark not economic consideration iqtisaadi ahaan aan loo fiirin laakiin social responsibility ee noqonaysa in la gaarsiiyo oo loo yahay faa'iido maaragtay u dhigmato aanan ka imaanin laakiin saad sheegay waa runta wadooyin baan ba jirin wadooyin laami oo wadooyin laami baan jirin oo biyihii baana la centralize grain horta meel kastoo dhan ceel baa ka qodan oo lama waayo miyiga haati laakiin ceelasha meel ay ka qodan hata tuuleeg waxaa loo baahan yahay in intii loo hagaajiya reticulation system taangiya la hagaajiya wax kastoo dhan oo shacabkii ay musqushooda biyaha iyo qololkooda iyo gurigooda sida hadda Nairobi aan u haysano wadanka intiisa kalena loo haysto magaalooyinka waaweyn way qabaan Gaarsi iyo Jeeri Mandheera qabaan laakiin hata magaalooyin yar baa qabaan oo dhowr laakiin in wadanka gobolka dhan la gaarsiiyo waa arrin meesha ku jirto muhiimadda aan ku soo wado horta la isma xaqiro anigu markaan baarlamaanka soo galay 1992 ardayda gobolka waqooyi bari ka imaato oo dhan oo jaamacadaha Kenya akhrisanayaan 65 bay ahayd 65 oo waliba badana ay waqooyi bari ka imaanin laakiin Soomaali weeyaan dadka ku dhashay Nairobi iyo Nakuru iyo Eldoret abayawad masa askari ahaa mase bamisteri u ahaa mase ku noolaayeen mase shaqaale dawladda oo nooc kale u ahaa mase shirkado u shaqeynayeen yaa u badnaayeen oo 80-90 ahayn sanadkii laba cunug baa marka u bataan laga soo qaadi jiray waqooyi baro jaamacadaha Kenya la keeni jiray maanta laakiin waxa lagu qiyaasaa 60 iyo wixii ka sareeya inay yihiin ardayda dhigtaan jaamacadaha isla 93 yaan motion geeyna baarlamaanka aniga aan geebarigi affirmative action through quota system motionka aan geynay yaa maxay ahayd na u garab qabtay waxaana la yaab leh motionka markaan beriga geey mucaarad baan aniga ahaa Kenyaanki kale markaan sheegay gobolka suu tacliin la'aan u yahay dhibka ka jiro ilin baa ku soo wada istaagtay kulligood madaxa la qabsaday Soomaalidii aniga ila imaatay waqooyi bari
inay iga hor imaadaan bay isku dayeen ay leeyihiin hadduu mooshinka ninkan mucaaradka uu keenay uu u maro magac buu ku yeelanayaa gobolka waqooyi bari doorashada soo socota mucaarad baa la dooran doonaa halkiis baan dhigeyso taa maxay kuu muujinaysaa horumar aan la gaarin cadkaanagii oonan helin wax kasta mar kasta dhibna loo geysto xasuuqna hataa ha noqoto xasuuqii wagaala xasuuqii maxay ahayd ka dhacay malkamari xasuuqii gaaris ka dhacay qaybta ugu weyn soomaali kalen baa ka shaqaysay dadka aan la degannahay wadanka aan la degannahay dad ka niyad fiican adduunka ma jiro aniga qabsa midaayada hungurina wuu maartay uu kula qabsanaya laakiin xumaan intuu ka fikiro ka shaqeeyo ceenka kulama maagayo xumaanta marka naloo geliyo oo ay ka mid tahay screeningka beriga la sameynay oo aan isleeyahay waxyaabahaas ayaa waxyaabihii xataa soomaaliya burburiyay ahayd mar kasta dad soomaali oo madax ah oo inta ka shaqeeya iyo dad lamid ah masabamishtir ayaa fidnadaa ka shaqeeya oo geliya kenyaanka kale markan motionka marinayay dad kamid ee soomaalidii meesha baarlamaanka ku jira inay ka hor imaadaan bay rabeen dadkii ila joogay waxaan xasuustaa biwot oo ahaa total man la oran jiray wasiirka ugu xoog badan ahaa meesha marka oo kanu ahaa yaa nin yaroo wiil yaroo aan magaciisa sheegaynin oo ag fadhiyay baa iyo dhowr jeer buu hadalka iga soo dhexgalay point of order wuxuu yiri intuu qabtay buu dhulka dhigay mar dambe ninkaa ka dhexgelin hadalkii buu dhageystay madaxuu gelgelay naxdin awgeed ku kaluu diray sunkuli buu diray u sheeg buu yiri baan kulliga ku wareeg waan support garaynaa motionka Faarax uu keenay olinti maama oo hadda dhintay oo Masai ahaa yaa yiri anaa second garayni intuu imaado soo wareegsaday igu yiri waxaan rabaa inaan second garay motionkaada second garay baan ku yiri ماشي بو كقاضي او يري امدن waa la xaqiray ingiriiska waa xaqiray mustacmarka waa xaqiray dawladda hore xaqirtay tan way xaqirtay laazim in la mariya affirmative action through quota system ki motion ki sanad gudihi yaan 550 arday aan gelinay jaamacadaha annaga marka wax aan intaan oo tagta maanta kenyaankan kale oo nolol madaxweyne ahaya nin kale ahaya lagu midaysan yahay oo lagu waan ma jirto horena lagu ma waynin maanta lagu ma waynin bari lagu ma waynin دبك أنتو كيما وصومالي وحاسس إنه يقعد حضوده وبغمجوين هذا كور بقى حلو سمي سكرينينج حلو سمي حالي الصومالي أفراد بدن بين تجوكته أو هي عن شرعي قاعتين جدا حلالهم يا كشقين لمن مدح الصومالي وكشقين تولد بالك الأدي تولد وحساس صارت إنك الصومالي دب لو سميه باريتان dad fara badan oo bacmishtari ah oo inta joogay oo maartay wadanka deganaa ayaa la qaaday dab baa la siiyay guryahooda laga soo qabtay wax kastoo nab gawaari baa dabada laga geliyay xuduudka la gudbiyay waxa ay ka Soomaaliya u ka qorag bacmishtari ah oo rag waaweyn ah carruurtooda inta ku dhaleen oo la arkaa inuu konton sano wadanka deganaa yaa asagoo beel ahaan loo raadinayay loonay reebel buu yahay qoyskan hoos ka yahay inta asal ma lahayn markii hore oo asalka laga raadinayo wax kooban حصل معك هذين هين وحكومة يلا دري حاجة مركي تجان تذكر هذي بكون حدين هذي فهمت الصبر أنا جو حنا الصبر كعيد ده دارات إلى إنه ممكن وذين بيوبناي وذين ما نسود كعيد دارات واحد نقسمي أراد الصومالي أكد عادي بربك الصومالي أكد عادي أنا قيبت عن كل الناي إد إله أنت أكل كل قيبتها بتشرت دتي أنت كتجي وبحاول غير وكمدها فكرت لك وبعمشتريها ودك أنا وسنوات قبل إنه الأورنجري إلهي قلنا حريص تدور أنت وترانسبورترها فربنا يلا دريو أنت القاضي لابد هذه حق ورا هالشخصية دي هذا وحسكو خمسة ما هالك الشخصية اللي حسيت أنت حط أمد إيد الآن ما أتساء وسميني مركا النجا حسوقي كدعي وقارا أود بنا هيسنا أنا أود بنا هيسنا مجرم سديتني اللي بدي مركا انقلاب كل اسكت دي ونك جنانك ها وصومالي ها ومشي في الشرقي وهي كدن بي أنا ودنك ديار بنو ها ودنك كالي قاطع ومدى إثيوبيا يا هيست إثيوبيا هي وحيلين صومالي كلين من كورمضها وكالي ودنك قبصة بدل كل قبصة لها صومالي دي جاست بس عضاء
tan Ethiopia aan ka faalan doonay hebel iga fiiji meeshan hebel aankan oo kale aan noqon rabaa kilirka ana kan sameyn rabaa xisbigan baan hagaajistay oo reebel waxaas oo kale ayaa meesha lagu ciyaacaya tii iyada ahayd waxaa dhacday 1989 in Gaaris ka dhacay xasuuq habeenka xasuuqa dhacayay niman mucaarad oo Soomaaliya ka carareen oo ku carareen Ethiopia oo ka soo horjeedeen xukunka Ethiopia 77 wixii ka dambeeyay dagaalkii 78 ka dhacday ka dambeeyay oo Ethiopiaanka ku adeegan hayeen dad ka socdo iyo safiirka Ethiopia Mengistu Desta nin jiji kariiku loorinay oo ahaa wasiirka Kenya oo internal security u shaqala oo geeriyooday marxaasi in ay ahaayeen dadka ka shaqeeyay in Gaaris lagu sameeyo xasuuq. It was always a Somali component. marka Soomaalida aan ku soo eedeysay Gaaris baa xasuuq ka dhacay 300 qof baa habeenkii la laayay nin la xumeeyay oo Cabdi Madoobe la oran jiray oo yaa dadka xumeeyay iyo raadsaday meel baar buu ugu tagay 5 qof buu ka dilay بدل كسر الرسل لها غيردي بقى يا الله حسوق إثيوبيان كانوا ويكوجرين وهذا عراد دي 7 كي كان عادي أو أي لجوب بربري أو أنت اللي جالس ولا حمر لجوب بربري وما كده مرة روش يكوبان عنك أي نقطة يا الربي أنت طول ميد أنت اللي جالس معي سفر mutual defense pact كينيا إثيوبيا وده هيسي اللي هرجليو اللي كينيا الراجل بدك أنت كويس إنجليز كي مريكا عسك أنت الواي مركز سومالي بالريب مركز إن سفر الله تخلص علاج بلا سمي مدحوينه markaa joogay Maxamed Saad Barre ilaahu naxariistay wuxuu yiri ma fiirsan karno Soomaaliya wax suuqaalka ciidankii yaa la keenay xuduudka nin hadda inuu dhintay inuu nool yahay garan umalin ma inuu nool yahay maxaa markaas wadaha oo labeen la oran jiray oo aan umalin inuu gaashaan la aha yaa dobli xuluq joogi jiray كواري مسوقات أيضا الصومالي وهذا بريا صومالي وحاول الناس إلى شيء يكره الله وحين هذا مجال الجارس وديار وها إنه دجال قالوا ضدك وبتبادي أفر سنة كدي مركل الوسم على السوق مجال هذا اللي يراح إلا بريا سيتو انقلاب كين ما دعين أنا ما وضع من كل مسكمت بعنها الصومالي أفر سنة كدي مركي 84 dhibaato ka dhacday u dhaxaysa Juraan iyo dawladii ka dhaxaysa wajeer ka dhacday wasiirka arrimaha gudahana uu nisnin Soomaaliya talaabaqaadkii la qaaday waa kii 2500 qabiil qoyska dawladii lagu laayay dawladda ay ku laysay wada gartay Soomaa dawladda Soomaaliya waxay tiraahday arintaasaytu waa internal affairs ka Kenya ma faragelinayna 300 oo lagu diray meesha la yiraahdo Gaarisna waxa la yiri waa talaab la qaaday 2500 meesha aan kan oo kala dib iyo qaxar lagu sameeyay hal qoys ahna oo dawladeena waxa la yiri nin yar baan ahay markaa jaamacad soo dhimay dibadda u socda annagoo 3 yaan garan yaan Nairobi dhax soconay nin hadda inta Ilaahay u naxariistay oo Axmed Khaliif la oran jiray aad saaxiib waheena iyo Cabdiqaadir Tuuli oo baarlamaan ku jiray anaga meeraas ku imaanay erku maan lagu soo dibin maalinka inooga xumeed ma jirin maxaa Soomaali baa la laanaya dawladda Soomaaliya oo annaga aan dhabarka aan moodi jirnay markii dhibaato jirtana mowqifkaas qaatay maxaa loo fasirayaa ko Gaaris lagu leeyahay waa daarad fagar halkay Maxamed Saad Barre waa daarad ma fahamay koona daarad ma aha dad madax oo daaradna way ku jiraan dawladda Kenya horta annaga dhibkana haysta waxa weeyaan qabiileynta aan u qabiileynayno qadiyadaha jiraan tiibay Soomaaliya ku burburtay horta aan ku sheegay runtii marna waxay ku burburtay iyagoo rabaan inay xoriyaan Soomaalida Kenya iyo Soomaaliya Ethiopia mar kale waxay ku burburtay annaga oo ay fidna inta aan ka sameeyay Ethiopia fidna aan ka sameeyay iyaga aan ku burburin walina burburka waan wadnaa marka waxaan ku soo wadaa halka aan ku keenay Kenya maanta nin Kenyan aan ahayn oo xumaan kula maagay ma jirto mar allaala markaad aragto xumaan lagu maagayo oo population kaada hoos loo dhigayo oo waxyaabo lagu sameynayo qasab niman Soomaali oo ku fikirayaan mise ku xisaabtamahayaan inay barna yareeyaan barna badsadaan
unbaa ku jirtaa fidnada iyada waa fahamtay sooma oo si xun u takarfanayaan fursaddii ay ku haysteen oo madaxtina markaa iyada waxaa ugu dambeyn dhanka Kenya haddii aan ka baxno xuduudan mushkilad ayaa mar kasta ka dhacda oo la xiriira dhanka amniga Wajeer iyo Mandera dowladda Kenya maxaa la gudboon si ay u difaacdo shacabka iyo dhibaatooyinkan mar kasta ka dhashay xuduudaasi oo argagixisada ay kusoo qaadeen kuwa Soomaalida ka dagaalama horta dowladda Kenya dadka la taliyo ku saabsan Soomaalida dhankeeda military ahaayana intaan security ahayna oo maxaa nabad sugid ahayna ada security maxay taam sida police iyo GSU ahayna mar kasta horta qolo Soomaali ba ku jirta wax alla wixii ka qaada meesha laazim Soomaali ba kula talinaysa nimanka waa niman xishood badan wax aanan u haysanin garab dhan kale kulma soo aadayaan laakiin marka naca Soomaalida xumaatada Soomaalida adiga saad ugu wada ka badiso marmar uu qaadan way qaadanayaan annaga uma baahnin ciidan iyo taangi wax aan ka soo kale nimankan waa niman lug ku socdaan wareegayaan lug baa lagu daba kici karaa ciidan yar oo kooban oo Soomaali iyo xoolo dhaqatada isku hagaajiyo oo rapid response abuurtooda loo hagaajiyo dhaqaalada loo hagaajiyo way tirtiri karaan argixisoo dhan kulli way ka tirtiri karaan ninkii la Soomaali intii maado way ka tirtiri karaan laakiin xuduudkii baa yaa xadisa ka dhacay sidii maalin dhacdo kale niman imaadeen oo Soomaalidii iyo muslimkii iyo Kiristaankii iyo Soomaalidii iyo Kenyaanka isku diri rabo yaa ka dambeeyay ciidankii baa operation qaaday inay raadiyaan shacabkii baa la garaacay shacabkii baa la laayay shacabkii baa la xasuuqay dhibaato lagu sameeyay shacabka bari buu ku soo sheegay markuu arkay al-shabaab uu ku soo sheegay kuma soo sheegay yaa keenay gaabkaasaytu annaga taladaanada inaan annaga intaan si fiican oo taladaanada la qaato annagoo midaysan ciidanka ciidankaasoo kale la hagaajiyo al-shabaab lugta lagu raadsado ciddi dhib keenta dhibkooda laga daba tago la garaaco laga adkaado kasoo tag hati diyaaradii Kenya baa intay tageen bay waxay burburiyaan maalin kasta hormuud maxay ahayd towerskeedii communication towers hormuud baa la burburiya dadkii baa gudaha dhib loo geystaa gabdhaha la kufsadaa Soomaalidana waa dadka aad garanaysi markaad gabar nin kufsato walaalkii wuxuu ku biiri argixisada ku biiri gabar walaasheed inuu argoosto u raba marka horta waxyaabaha aan samaynayno dad baa intii loo qaatay si loo garaacay aad malayn karin si lagu samaynayo ninka Soomaaliga darbaxadii garaacay geeri baa u dhanta wada gartay Soomaa dhaqan buu iska leeyahay ma yeelayo qorigu qaadan hadda walaashin that's not rocket science mid ayada mid yani aqoon dheer u baahan maaha nin kasta oo la dhibo oo Soomaaliga oo la duleeyo oo la dilo la bahdilo waa arkosan على الأقل أنتوا كنت المعني marka horta waa sax hadda ka hor xasuusta nin ii sheegay sargaale wiilal geel la jiraan oo geelooda iska wadataan Kenya gudaheeda iyo niman askar gaari ka halaabay ee meelihii bay lagu marmareen wiilashii bay tagaan waxay dhan garab bashaarka iska siib qorigii show ay geelooda ku qalqaalisan jireen iyo inta ku arkay way garaaceen wiilashii qabteen aad u garaaceen way sii daayeen haddana تبغى أردنا كوم ملا جوجو درجوجها توجتها وإسقاط طريقها يويرتين أسكت ماشي كلها فاهم زوا كاري نودر نبى يراك أنت صار هرات بين سنين يكون الله يدري وقدري وطبيعي ونورمال أنا تقولي إنك كوسادو إنه أنت ما جعلان لا ما يقدر ذلك مسك ولا شيء مسك جبر كستبو marka waxa loo baahan yahay in loola taliyo dawladda si dhab ah loo sheego la yiraahdo tan ma soconayso tan socon intaan marna laakiin marka adiga aad tiraahdo ku kala xaga ka soo maraya oo dabaqoodi oo maartay doonayay inuu si kale iskaga gado ma fahamtay oo waxa ka duwan muujinayo marka horta dhaqankii Soomaalidii iyo midnimadii Soomaalida markii la waayay iyo siyaasiyiintii oo si maskaxaysan oo intellectual u mideen hayaan aragtidooda iyo abaarkooda
soomaalida intay ku ladnaan soomaaliya baa degi si وهاجك داود أنت سيانو كسو أفميرنا برامج كي حق قالوا أدعى وستة سأول صوتين مقلبة هي سي برامج كا وحاج نسو سناني بعض جليل اسمه سموه فارهم علم بدون يكون كي هوري برلمان كدلك كينيا أو سياسي سوماليات أي إقلا قيب قاعدتي وأنا مهدلينينا تاني يتان برامج كان برامج كا نوح كدومو أي إذين دوبي موقال كقول في البلان تاني برامج كان برامج كيبو كل بدون واحد كذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سومالي أنا